بدرب قرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي صديقي. حول aniga aad timaadeen inaan idin daaweeyo anigii baa buka anaa jiran waa nin dhalinyaro ah oo Ingiriis ah meel dhakhtaraan tagay anoo jooga London Ingiriiska magaalada caasimadooda waxay la socday laba nin oo yani ducaada oo khamiisyo xiran oo anigana khamiiskayga iska qabayo wuxuu dareemay inaan muslimiin ahay dhakhtarkii markaan u galay aniga daawo u socday xarun badan ima hayno xogay laf dhabarka meesha luqunta yar xanuunaysay marka dawladda qadar baa masaajid xagga laba bilood soo tuujitirayo maadaama aan xaggeeda ka socdo waxaan isiri iska baaritaaniya wax iska sameeyo iyaga lacagta bixinaya lacagtooda ma bixin karaba waa dhakhtar qaali ah muhiim dhakhtarkii markaan u tagnay hor fariisanay ila rabay inuu nabaaro ma karanaysa hawshay dhex galo wuxuu yiri marra la iga ahaada arrin aan la ii dirsanin oo aan shaqayna ku baan idin weydiin karaa ha wuxuu yiri aniga aad timaadeen inaan idin daaweeyo anigii baa buka anaa jiran waa nin dhalinyaro ah oo Ingiriis ah oo cadaan ah weli dadka madmadow baa taciisiina talaan cadaan indha bulbuluga la waay wuxuu yiri tacbaan baan ahay oo anigii baa jiran marka jiradeedana waa idin sheegayaa wuxuu yiri xusni iyo murugo masruur saada ma haysto waxaan maalmahan ku fikiraa buu yiri inaan isdilo ma fahamtay hadalkayga ninka dhakhtarka muxuu yiri waxaan doonayaa in aan isdilo yaan ku fikiraa buu yiri maalmahan waa ciriiriga aan dareensanahay buu yiri qalbigayga waxaan soo ogahay buu yiri in arrinta iyo meesha leega haystaa ay tahay xaq ilaahay caafimaadkaygana ilaahay uu hayo wallahi saasuu yiri alladii laa ilaaha illa hu wuxuu yiri ilaahay uu inuu caafin karo baan ogahay laakiin mushkilada ay haysata waxa weey buu yiri ilaahay ala qalamalihi oo markaan yaraana kristan baa lagu soo ababiyay kristaankana ma jeclaanay buu yiri waxaan ku nacayna waxa weey buu yiri ilaahay aniga agteeda wax weyn buu ka yahay markii la yiri wiil anigoo kala uu dhalay oo musqul galaya oo cunto wallahi wuxuu saasuu yiri wuxuu yiri oo intuu cunto cuno musqul u baahanaya wiil saasuu dhalay markii la yiri baan iska nacay diintoodii oo dhan ma nacay saas darteed waan ka tagay kristaankii diin kalena ma galin wali marka maadaama aan ilaahay aan calaaqala lahayn oo waxa aniga ilaahay soo keenay diin tahay waxaan ogahay meesha la iga haysto inay xaqqa tahay waxaan maqlay buu yiri islaamku inay ilaahay war fiican ka sheegeen oo arinta aan ahayn ma ii sheegi kartaan islaamka bal ka warrama waxaan irhaa waa ku sheegayna nimankii waxa la yiri adigu la hadal anaga u tarjumaynay arinta hadda aan idin sheegay ku bilaabay baan kala hadlay waxaan indhuhu waxbay ku raaxaystaan dhaguhu waxbay ku raaxaystaan waliba isagu wuxuu ka sheekeeyay inuu dhalinyaro yahay oo istimtaac ku jiro oo meelaha hablaha uu la boodboodo oo wax iga maqan ma jiro buu yiri lacag fara badan baan qaataa wax kastaan haystaa meelihii la igu sheego in lagu raaxaysto adduunka waan tagaa raashiyaan ka imid buu yiri ruusiya ayaan ka imid buu yiri markii la igu yiri gabdho qurqurux badan baa jooga haddana meeshii un baan ku soo noqday sidii un baan ahay taciis baan ahay qalbigaygu ciriiri buu ku jiraa marka waxaan indhuhu waxbay ku raaxaystaan dhaguhuna waxbay ku raaxaystaan warkii hadda aan idin akhriyay baan u akhriyay exactly buu yiri exactly fikriisku waa taqaanay kulligeed ahla hargeysa khusuusan sax ma tahay doctore exactly si fiican ugu dhawaaqay warka waa sax buu yiri jamalna waa joogaaba oo ninka quraanka idin akhriyay Bariitaaniya ku dhashay Ingiriisku ku dhashay halkaasuna quraanka ku xifdiyay hadda deedin quraanka lama xifdiyi karo mar baan ka sheekayn doonaa sheekadiis
المهم waxaan sidaas darteed baa qalbigaagii wuxuu ku raaxaysan lahaa baadan siinin jirka inta kale oo dhan isaga xukuma malikul a'daa wa qalbigii baa tiiraanyaysan oo tacbaana qalbigaaguna ma degayo mana raaxaysanayo ilaa ilaahay xusto ayadana nukhriya alladina aamanu ayadana nukhriya bitajwid alladina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub qalbigaaguna ma degayo mana raaxaysanayo ilaa ilaahay xusto ilaahay inaad xustood rabbigaa jeclaatana oo qalbigaaga allah rabbul aalamiin uu ku weynaadana waa inaad islaam noqotaa marka iska islaam haddaad daawo doonayso wuxuu yidhi warkaagii waa iga degay waana war sax ah anaanaba diyaar u ahoo raadinaya laakiin fadhigan mar qura inaan iska islaamo soo kama ficna inaan wax soo baarbaaro oon maan muddo soo wallahi waxaan aniga daawadan kugu imid haddaad hadda uun ii dhammaynayso oo appointment dambe iyo mawcid dambe iyo usan jirin waa iska qaadan lahaa hadda ma iska qaadatid may waan dadaalayaa buu yidhi ii soo ducee markaan kasii tegay wuxuu yidhi pray for me تمام يعني صلي من أجلي يعني إيسو دعاء يعني وحدرين سيها إنه دعاء بهيه حدرين سيها ما شاء الله هايشتو وقلبي أن قرآن كجرين وقلبي سورة الفاتحة أن أقول وقلبي قل هو الله أحد الله الصمد أن هينوي كيف يرتاح مع أنه إنه شيكتي نولش أدونك وحكم غنيني سنجرين